Qofka sheekada ka warramaya wuxuu sheegay inuu tan iyo yaraantiisii jeclaa sheekooyinka cabsida leh iyo arrimaha horor ee cabsida badan, gaar ahaan guryaha la sheego inay ruuxaan ku jiraan. Maalin ayuu galay group sir ah oo internetka ah oo dadka ku wadaagaan khibradahooda cabsi leh. Halkii ayuu ku arkay qoraal uu qoray wiil ka soo jeeda isla magaalada uu ku nool yahay. Wiilkaas wuxuu ka sheekaynayay guri aad u duug ah oo la sheegay inuu yahay guri la isku dilo. Gurigaas waxaa hore uga dhacay dil aad u xun, aabe ayaa dilay qoyskiisii oo dhan kadibna isaguna isdilay ugu dambayntii. Tan iyo wakhtigaas, dadka magaalada waxay sheegaan in waxyaabo yaab leh ka dhacaan guriga, sidaa darteed cidina ma rabto inay ku noolaato. Wiilka ayaa sheegay in 6 bilood ka hor uu galay guriga si uu u duubo muuqaal. Markuu gudaha hore ugu galay ee uu socday wuxuu dareemay in qof ama wax uu daba socdo. Markuu gadaal u jeestay wuxuu arkay baloon jaalle ah oo u muuqday inuu keligiis dhaqaaqayo. Isla markaas wuxuu afkiisa ku dareemay dhadhan bir u eg. Markuu galay qolka jiifka oo mugdi ahaa, si lama filaan ah ayuu u arkay ruuxa haweeney cabsi leh oo aan lahayn indho oo ku qaylinaysa. Wuxuu sheegay inuu wax walba ka duubay kamarad, laakiin cabsi darteed kamaradii ayaa ka dhacday gacantiisa wuuna cararay. Qoraalkiisii ugu dambeeyey wuxuu ku qoray, kuwa dhintay waxay ku nool yihiin halkaas, inta u dhaxaysa nolosha iyo dhimashada. Qofka sheekada sheegay ayaa fariin u diray wiilka si uu ogaado runta. Labadoodii waxay wada hadleen qiyaastii 1 usbuuc, wuxuuna bilaabay inuu jeclaado la hadalkiisa. Mar dambe wiilkii ayaa ku yidhi, maxaad u iman weyday guriga si aad adigu u aragto? Qofkii sheekada sheegay wuu aqbalay. Maalintii xigtay fiidkii ayuu tegay guriga, laakiin wiilkii wuu soo daahay, taleefankiisana shabakad ma lahayn. Intuu sugayay wuxuu arkay dhaqdhaqaaq gudaha guriga ka dhex socda, markaas ayuu u malaynayay inuu yahay saaxiibkii. Wuxuu furay albaabkii duugga ahaa oo gudaha ayuu galay. Gudaha guriga wuxuu ahaa mid mugdi ah oo burburay oo leh jawi aad u xun. Intuu socday wuxuu dareemay qabow iyo cabsi, xitaa wuxuu arkay in hooskiisu si aan caadi ahayn u dhaqaaqayo. Markuu galay qolka cuntada ayuu mar kale afkiisa ku dareemay dhadhankii birta. Si lama filaan ah ayuu u arkay baloonkii jaallaha ahaa oo gadaashiisa ka socday. Markuu u jeestay baloonku wuu istaagay. Wuxuu galay qol u eg qol carruur, halkaas oo uu maqlay qosol carruur iyo kubad boodaysa, inkastoo uusan qofna joogin. Markuu qolka ka baxay ayuu arkay ruuxdii haweeneyda ee wiilku ka sheekeeyey. Waxay istaagtay jaranjarada iyadoo indho madhan leh, wejigeeduna dhaawac yahay, gacanteedana ku haysa baloonka jaallaha ah. Cabsi darteed qofkii sheekada sheegay wuu cabsaday oo cararay. Intuu cararayay wuxuu arkay kamarad dhulka ku dhacday oo boodh leh. Wuxuu u malaynayay inay tahay kamaradii saaxiibkii, markaas ayuu qaaday oo guriga ka baxay ilaa uu gaarigiisa gaaray. Markuu gurigiisa tegay ayuu isku dayay inuu fariin u diro wiilka, laakiin wax jawaab ah ma helin. Markaas ayuu go'aansaday inuu daawado waxa ku jira kamarada. Fiidiyowgii wuxuu muujinayay qolalka guriga oo madhan ilaa uu gaadhay meel uu qofka duubayay bilaabay inuu ordo. Markaas ruuxdii haweeneyda ayaa soo muuqatay, fiidiyowgana wuxuu ku dhammaaday qaylo cabsi leh oo uu wiilku ku qaylinayo. Isla markaas taleefankiisa ayaa fariin cusub helay. Waxay ka timid wiilkii la oran jiray Tariq, wuxuuna ku qoray, mahadsanid inaad iga xoraysay meesha mugdiga ah. Markaas ayuu qofkii sheekada sheegay fahmay xaqiiq cabsi leh. Muddadii uu la hadlayay Tariq wuxuu la hadlayay qof hore u dhintay. Saaxiibayaal, soo dhawada sheekadana intaas ayay ku eeg tahay. Hana ilaawin subscribe, like, share. Mahadsanidin.